السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين wanaagsan walaalada qaaliga kusoo dhawaada Ubax Lifestyle channel. maanta waxaan noo wadaan routine kale oo cusub insha Allah. haddaadan channelka ku xirneen subscribe noo saar gambaleelka furo si aad uga mid noqoto walaalada nagu xiran. waana mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. subax wanaagsan walaalada qaaliga isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay. waa maalin kale iyo routine cusub insha Allah. alxamdulillah ilaahay caafimaad uu noogu bariyay. idinkana waxaan rajeynayaa sidaas si la mid ah insha Allah meel walba iga daawanaysaan walaalada qaaliga ah. hadda waa aroor waxaan noo bilaabmay maalin laheedii sida caadada ah. noloshu waa maalin walba noloshu way socotaa haddaadan dhimanin. marka saaka quraacdeeni ayaan hor dubanaynaa sidaad aragtaanba canjeeradeeni ayaan dubanaynaa waad aragtaan maasha Allah tabaarakallah. hadda quraacdii ayaan ka bilaabnay nadaafad quraac wax walba oo isku jira ayaan maanta wadnaa insha Allah. motivation yar ayaan wadnaa. marka asxaabta qaaliga idinkana waxaan idinka codsanaynaa fiidiyoyada inaad laag badan noo siisaan si uu u gaaro dad badan ilana socotaan insha Allah. subscribe-na noo dhahdid haddii aad nagu cusub tahay kuwa nala joogana aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin walaalada ila jooga waan iiga mahad celinayaa idinkana mar walbo. sidaad aragtaan hadda quraacdeeni ayaan kasoo gudubnay waan soo duwanay. hadda waxaan sameynayaa jikadii ayaan nadiifinayaa cunada lagu kariyay oo alaabtina waan dhaqdhaqayaa insha Allah. marka hadda alaabta markaan dhaqo waxaan rabaa kushiinka maanta inaan ka shaqeeyo korkiisa oon dhaqo oo maxaa iraahdaa si fiican u nadiifiyo. marka hadda sidaad aragtaanba jikadii ayaan nadiifinayaa maxaa iraahdaa alaabtii ayaan nadiifinayaa aan dhaho kadibna jikada ayaan nadiifinaynaa insha Allah bidnillaahi kariim hadduu ilaahay yiraahdo. waxaa waaye maalin walba shaqo hor leh ayaa taalo. waxaa waaye shaqo ma dhamaatay aad lee dhamaanaysid ee kuma maan reexa marka intaan nool nahay dee hawsha way kuu taagan tahay uun mar haddii kuu taagan tahay waa inaad shaqaysataa soo maaha. haddaaba noosho caafimaad ilaahay ku siiyo oo caafimaad aa qabtid. dad waxaaba jira maanta caafimaad aan haysanin lixaadkooda qaar dhamaystirneen oo waxba ku qabsan karin. marka alxamdulillah ayaan leenahay mar haddaaban wax ku qabsan karno lixaadkeenii uu ilaahay noo dhamaystiray oo caafimaad taamana aan haysano ilaahay caafimaadka noo siyaadiyay walaalaha aan haysan caafimaadka ee bukan waxaa ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay caafimaad siiyo insha Allah. marka asxaabta qaaliga hadda weelkii waan soo dhaqay meeshii alaabta waan ka qaaday. marka hadda waxaan rabaa kushiinka korkiisa inaan si la yaqaano maanta uga soo go-o u nadiifiyo. meesha alaabta la dhigo waxaa waay biyaha alaabta ka daato wuxuu ku sameynayaa xoogaa heer yar. marka haddii aad tirtiraha bis aa ku tirtirto marada yar aa ku tirtirto marka wax yar oo meesha dhulka ku harharaya ayaa jiro. marka maalmaha qaarkood waxaan sameeyaa weelka dhan ayaa meesha ka qaadaa kadibna waxaan ku xaquuqaa liif inta ku shubo maxaa iraahdaa baking soda iyo shaambo yar ayaan liif ku xaquuqaa. marka liifka iyo baking sodada iyo shaambooga si fiican ayay u dhaqayaan kushiinkana in aad ku nadiifsatid aad ayay u wanaagsan tahay waayo bakteeriyada dhan ayay ka dilaysaa. baking sodada caadi ma aha aad ayay u wanaagsan tahay in wax lagu nadiifiyo. baking sodada waxaa waaye jirka xitaa gacmahaaga waa ku nadiifin kartaa after weel dhaqis iyo waxaas haddaa in yaroo liin dhanaan inta ku darsatid malab yar ku darsatid sokor yar ku darsatid aad ku xaquuqdid gacmahaaga xagga sare oo dusha dhan qolof iyo madmadow iyo wax ma yeelanaysid. afterna aad saliid yar ama glycerin yar ama vaseline yar waxaa haysatid aamarsatid. ani hadda sidaad aragtaan gacmahayga wax gloves ma gashanaayo intaan shaqeynayo dhan waa ii jeedaan gloves dhan ma xirni laakiin after haul yacni waxaa waaye gacmahayga lama fariisto iyagoo sidooda ah waan kasii shaqeeyaa. wixii aan marin karo oo qoyaan aan u siin karo moisturizer ayaan u siiyaa oo mariyaa. markaa gacmihii kaama halaabayaan yacni gacmahaaga waxay kuu noqonayaan gacmo iska jilicsan oo adeeg kaa noqonaynin. dadka qaar ayaa waxay dhahaan hawsha markaas weelka ku dhaqna gacmaha naga adkaado gacmaha qolof naga koro laakiin daryeel la-aan ayaan u fahmayaa waayo haddaa gacmahaaga sii daryeeshid maasha Allah qolof iyo wax kaa koraayo ma jirto. marka walaalada qaaliga ah hadda jikadii waan tirtiranay waxaan tirtirayaa bahalka yaraa ii kor saarnaa alwaax yar ii kor saarnaa dhalooyinka saliidda iyo fiyooraha yar ayaan haddana usoo jeedsaday korkiisa ayaan dhaqayaa waan tirtirayaa isaga dhan. waxaan rabaa inaan bartiisii ku celiyo jikada way qalashay marka waxaan rabaa inaan bartiisii ku celiyo alaabtiisa saarneed aan dul saaro siday ahayd aan ka dhigo wax walbo booskiisii ayaan rabaa in aan ku celiyo insha Allah. walaalada qaaliga waxaan idinka codsanayaa maxaa iraahdaa channelkayga haddaad ku cusub tahay ood soo gashid inaad subscribe-ka ila dhaafin fideoga haddaad daawatidna laag noo siisid waayo laagta badan waxay naga caawinaysaa in fideogeena kor u kaco dad badanna uu gaaro sidaa mar walbaba idin iraahdo. marka intaas igu caawiya idinkana jasaakumullah ayaan idin leeyahay waan iniga mahad celinayaa.
hadda marka waxaan rabaa microwave-ka inaan haddana nadiifiyo positionkiisa aan kasoo qaado gadaashiisa aan soo tiro isaga howl badan gadaashiisa uma baahno waa in yar meel yar waaye marka iyada waxaa waaye intaas yar hal maraa lasoo marinayaa wasaq badanna mayna lahayn kadibna microwave-ka ayaan furay dhaladii ku jirta ayaan kasoo bixiyey sidaad aragtaanba waa nadiifinayaa iyada laftirkeeda waan qalajinayaa microwave-ka dhexdiisana waan soo tirtireynaa insha allah isaga wasaq badan ma leh waayo mar walba gacanta ayaan ku hayaa maadaama gurigeyga armaajooyinkiisa iyo alaabteeda kushiinka oo dhan wax iska cadcad ay yihiin mar walba gacanta ayaan ku hayaa waxaan waxa cad u doortayna waxaa waaye in aan wasaqda yacni hore ka arko waayo wax shayga cad wasaqda ayuu hore kasoo qabtaa kadibna maxaa iraadaa markaad aragtid dee kuma dhaafay sidoo foolxumo ayuu noqonayaa waa inaad gacanta sii marisaa marka wiibka yar ayaan mar walba sii marmariyaa ani oon ku tirtiraa wiibka loogu talagalay in lagu tirtiro dhalooyinka iyo miisaska iyo waxaas marka mar walba kaas ayaan sii mariyaa kadibna wasaq badan ma yeelanayo laakiin armaajooyinka hadday kalar yihiin kalarka wax wuu qarsadaa aniga awalka hore waxaa iigu xirnaa armaajooyin brown ah laakiin beri dhaweed oo shirkadda iyo guriga dhisaysay ayaan doortay kalarkan cadaanka ah maxaa irahdaay ujeedka aan u doortayna wuxuu ahaa in aan wasaqda ka kor arko weligeyna waan ku hamin jiray in aan armaajooyinkaygaas cadaan ka dhigo balse nasiib waxaaba u yeeshayba shirkadda guriga ayaa dhismo sameynaysay oo guriga yacni ka bedeleysay waxyaabo badan inta hadda youtube-ka ka maqnaa ayay ahayd marka waxyaabo badan ayay guriga ka bedeshay alxamdulilah ayaaban iri anigana markaas maadaama ay howl galeenba wixii aan rabayna la ii sameynayo waaba yaa saa rabayba waayo sooma marka walaalada qaaliga hadda sinki maa la lahaa meeshaan sixnigan oo tubada hadda waxaan ku dhaqayaa baking soda isagana iyo shampoo yar ayaan isku daray oon ku nadiifinayaa aad ayayna u nadiifinaysaa baking sodada iyo shaambada weelka lagu dhaqo marka burushkan yarna wuxuu kaa caawinayaa in uu meesha nadiif kuu noqdo oo wasaqda iyo wuxuu dhan uu kaaga jaro maxaa irahdaa si fiican ayuu kuu caawinayaa haddii aad dhaqaysid xitaa tubada meeshaas luqluuqa ah oo gacanta gelaynin ama marada kusoo titirmaynin maxaa irahdaa intaa caday iyo wax raadin laheyd buraashka yar ayaa kaaga fiican wuu kasoo saarayaa maxaa irahdaa wixii luuqaas kaga jiro dhan tubada hareeraheeda laabad yar ayay leedahay marka wuxuu dhan wuu kasoo bixinayaa xitaa maxaa irahdaa sixniga meeshaas biyaha jeexjeex yar uu leeyahay geesgees ayaa u gelinaysaa wuxuu dhan nadiif ayuu kaaga dhigaya wuu ku dhaqayaa ushaan yarna waxaan ku jeclahay biyaha ayaan ku xaaqaa maral maanta dhan maku tirtiri kartid laakiin laba mar haddaa ushasaan biyaha kusoo tiraahdid maasha allah biyihii dhan way kaasoo xaaqmayaan waa kaasa waad aragtaan hal mar ayaad kusoo qaadaysaa kadibna marka dambe marada ayaad soo marinaysaa haddaad doontidna marada uma baahnid usha keligeed ayaa kuu qalanjin karaysa meesha oo biyaha dhankaaga soo dhammeynaysa sidaad hadda aragtaanba laakiin meelaha yaryar ee luuqluuqa yaryar ayaan marada sii marinayaa marka asxaabta qaaliga ah saaka rootiinkeenii waa sidaan insha allah fideoyo kaloo badanna way noo soo socdaan hadduu ilaahay yidhaahdo fideoyo badanna waxaa noo soo wadaa dee faa-iido leh oo aan ka faa-iidi doono insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo idinkana waxaan idinka codsanaya inaad sare ii qaadaan insha allah bidnillaahi kariim laag badanna na siisaan waan idinku soo celinayaa mar saddexaad iyo mar afraadba oo janalka kor iigu qaadaan waxba idinkama dhibayso walaashaayoo caawinaysid oo yacni garab istaagaysid ayuunbaa ahay anigana motivation ayaa idin siinayaa maxaa idhaahdaa waxaa waaye dhiirigelinta aad ayay u fiican tahay kushiinkeeni sidaas ayaan kasoo dhigana nadiifta dhagdhag haddana bokiska yar ka yar u yaalo fadhiga ayaan rabaa inaan ka nadiifiyo go-a ka bedelo busto yar ayaa u saaran bustihii waan ka qaaday marka hadda waan u yara bahal yaroo iskooba yariis oon ugu talagalay hareeraha iyo waxaas inaan kaga tirtiro ayaan kaga jafjafaayay dhexdiisa kadibna bustihiisii waan usoo dhigay go yaroo nadiif oo cusubna waan u saaray busto yaroo kaluu huwadana waan usoo dhigay meeshaas ayuu tv-giisa ku daawadaa walow uu hadda bartay sida looga soo baxo uu kasoo baxo maasha allah laakiin wuu anfacayaa ilmaha mar haddaa guri dabaq degan tahay bokiskan oo kale wuu ku anfacayaa fadhiga ayaa dhiganaysaa yacni dabaq waxaan ka wadaa guri kor loo koraayo qololkii ah oo gurigaaga uu isku wada oolin marka anaga qaybta sare ayaa qololka loo aadaa sidaas la ajligeed bokiskan aad ayuu qofka u anfacayaa haddii qaybta sare qololkaaga yahay waayo ilmaha yar intuu yaryahay kor inta geysad kama soo tagtagi kartid adigana way kuu fiican tahay isagana way u fiican tahay seef halkaasaa kala soconaysaa marka asxaabta qaaliga hadda armaajadan ayaan soo nadiifsaday qadakaris ayaan galnay maanta canjeero xabashi ayay ka shidan tahay sooskeedii iyo suugadeedii ayaan karsaday canjeeradana waan soo iibsanay waa kaasaa maasha allah tabaaraka allah allah noo daweeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu